kulanti wanaagsan kuna soo dhawaada xarunta telefishinka BBC London qodobada wararka caalamka ugu waaweyn waxa kamid ah madaxweyne Trump wuxuu difaacay xogta uu la wadaagay madaxda Ruushka kadib markii uu buuq ka dhashay arrintaasi waxay Turkigu ka rabaan xiriirkooda sii kordhayay Afrika BBC-da ayaa la hadashay ra'iisul wasaare Binali Yildirim si aan wax uga ogaano xiriirka Turkiga iyo Soomaaliya waxay fanka soo gashay iyadoo aan waalidkeedu ogolayn inay haysto waxaanu kala hadli doonaa Khadija Fooday taariikhda fankeeda aqalka cad ee Mareykanka ayaa maanta galay buuq cusub kadib markii wargeys Mareykanihii uu ka warramay in madaxweyne Trump uu xog u sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka kulankii ay yeesheen toddobaadkii hore Mr. Trump ayaa qirtay inuu la wadaagay Ruushka xog ku saabsan dagaalka kooxda la baxday dawladda Islaamiga ah lagula jiro saacad ka hor la taliyayaashiisa ayaad ku adkaysanayay in aanay wax xog ah gudbin Ruushku waxay ku tilmaameen arrintan war been abuur ah Farxaan Maxamed Jimcaale ayaa ka warramaya xiriirka la sheegay Donald Trump inuu la lahaa Ruushka waxay saamaysay boqolkiisii maalmood ee ugu horeeyay eedeymahan ugu dambeeyay Trump waxa uu sheegay xog sir oo xasaasi ah wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka shirkii ay xafiiska Oval ku yeesheen toddobaadkii hore sida ay ku warantay Washington Post iyagoo ka hadlayay khatarta kooxda IS waxa madaxweynuhu si aan la sharixin ugu sheegay Ruushka war ku saabsan halka ay Mareykanku xogta ka heleen war ayaa sheegaya in madaxweynuhu nin faanaya u ekaa akhbaarta la xiriirtay isticmaalka laptopyada ee diyaaradaha laakiin warbixintu waxay sheegtay in hay'adaha sirdoonka Mareykanka ay tahay in la ogeysiiyo maadaama madaxweynuhu suurtagal tahay inuu sheegay xog aan loo baahnayn isagoo saaka isticmaalaya warbaahinta bulshada Trump waxa uu yiri waxaan la wadaagay xaqiiqo jirta Ruushka dagaalka ay kula jiraan IS iyo argagixisada madaxda sare ee la joogtay kulanka uu la lahaa Ruushka ayaa difaacay madaxweynaha ficiladiisa iyo hadalkiisa marnaba lagama hadlin xog sir ah ama wax la mid ah madaxweynuhuna marnaba ma sheegin wax howlgal military ah oo aan awalba bannaanka oolin si weyn ayaa walaac looga qabay Donald Trump inuu sirta Mareykanka sheegayo waagii ololaha uu ku jiray Hillary Clinton ayuu ku weeraray markii ay isticmaashay email-adeeda khaaska ah oo uu ku eedeeyay in dalka ay halis gelisay waxay u tahay toddobaad weyn Trump madaxweynaha Turkiga Erdogan ayaa wada hadal kula leh aqalka cad kuwaasi oo si fudud u dhaawacmi kara marka la eego xiisadda u dhaxaysay Washington iyo Ankara markaa kadib Trump waxa uu ambabaxayaa booqashadiisii ugu horeysay ee dibadda oo uu ku tagay Sacuudi Carabiya iyo Israa'iil waana toddobaad tijaabo u noqon doona xirfadiisa diblomaasi faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan warbixintan Donald Trump iyo kuwa kaleba waxaad ka heli kartaa bogga BBC Somali adigoo ka galaya moobilkaaga ciidamada gaashaanbuurta ah ee uu Mareykanku hogaaminayo ee ka dagaalamaya Mosul ayaa sheegaya in kooxda Daesh ay qarka u saaran tahay in la jabiyo waxayna sheegeen in hadda ururkaasi la baxay dawladda Islaamiga lagu hareereeyay 10 kiiloomitir oo ku yaala galbeedka Mosul weerarka lagaga saarayo Daesh magaalada Mosul ayaa bilaabmay bishii Oktoobar ciidamada Ciraaq iyo kuwa isbahaysiga Mareykanka ayaa ku dadaalaya qabsashada galbeedka Mosul BBC-da ayaa fursad dhif ah u heshay inay raacdo ciidamada isbahaysiga 8 bilood kadib muuqaalkani ma aha mid cusub dagaalka lagaga saarayo magaalada Mosul ururka isku magacaabay dawladda Islaamka ayaa haatan holcayay muddo ku dhow 1,000 maalmood gabagabaynta dagaalkan ayaa noqon doonta marxalad adag oo halis ku ah ciidamada Ciraaq si kastaba ha ahaatee ciidamada Ciraaq ma aha kali socod ciidamo gaashaanbuur ah oo uu Mareykanku hogaaminayo ayaa ku weheliyay jiida hore askarta Mareykanka ee ku sugan saldhigga Petrol Base ayaa si toos ah ula shaqeeya ciidamada booliiska ee Ciraaq si ay ISIS uga riixaan magaalada labaad ee dalka waxaan joognaa Mosul dhinaca koonfureed ee garoonka diyaaradaha 5 ilaa 6 kiiloomitir aynu u jirnaa safka hore ee booliiska dagaalka horay iyo gadaal ayuu u socdaa maalin kastana dad dhiig ka socda ayaa halkan la keenaa dagaalka haatan ka socda gudaha Mosul ayaa la filayaa in lagu soo afjaro colaadan
laakiin magaaladu waa meel cidhiidhi ah waxaana weli ku xayiran kumanaan kun oo dad oo rayid ah inkastoo kumanaan kun oo kale ay hore uga qaxeen. haddaba su'aasha ugu weyn ee hadda taagan ayaa waxay tahay kadib marka uu dagaalku dhammaado maxaa ka soo hadhi doona magaalada Mosul yaase difaaci doona dadka rayidka ah. bal markan aynu egno wararka kale ee ku jira maanta warkayga. askartii gadooday ee dalka Ivory Coast ayaa ogolaaday heshiis ay la galeen dawladda. waxaa loo ballan qaaday inay heli doonaan $8,000 askarigiiba, lacago kalena la siin doono dhammaadka bisha Juun. jimcihii hore laga soo bilaabo ciidamo gadoodsan ayaa rasaas hawada u ridayay jidadkana xidhay. madaxweynaha South Sudan Salva Kiir ayaa soo saaray digreeto lagu bedelayo magaca ciidanka difaaca ee dalkaasi. waxaa hore loo odhan jiray ciidanka xoreynta dalka Suudaan dadka Suudaan aan idhaahdee magacii jabhaddii SPLM ee dalkaasi xorriyadda u horseeday 2011. waxaa imika loo bedelay xoogga difaaca ee South Sudan. isbeddelkan ayaa ku jira heshiiska nabadeed ee South Sudan. jasiirad aan cidina degganayn oo ku taalla koonfurta Basifiga ayaa ah meesha ugu badan ee caalamka qashin ka buuxo caagada iyo balaastigahi marka la eego dhanka xajmiga. Henderson Island oo ka tirsan dalkan UK jasiiradahu leeyahay ee Pitcairn ayaa waxaa yaala 37 milyan oo walxood oo qashina xeebaheeda. jasiiradda ayaa ku taalla meel ay isugu yimaadaan mawjadaha baddu. maalgelinta Turkiga ee qaaradda Afrika ayaa labanlaabantay sanadihii dhowaa. diyaaradda waddankaasi ee Turkish Airlines waxay u duushaa dalal badan oo qaaradda ah oo ay Soomaaliya ku jirto. haddaba waxa uu Turkigu gelinayo Soomaaliya iyo waxa uu ka helayo keebaa badan. Turkigu waxa uu gacan weyn ka geystay macluushii ka dhacday Soomaaliya 2011 oo ay ugu deeqeen $300 milyan. waxay sidoo kale ay ku bixiyeen lacag gaadhaysa $400 milyan dib u dhiska iyo horumarinta Soomaaliya. Turkigu waxay deeq waxbarasho siiyeen 3,000 oo arday oo Soomaaliyeed oo wax ka barta dalka Turkiga. ra'iisul wasaaraha Turkiga Binali Yildirim ayaa BBC-da uga jawaabay sababta uu Turkigu Soomaaliya u tagay iyo heshiisyada ay la galeen. Our president decided to go there. waxay ahayd go'aankii ugu muhiimsanaa ee madaxweynaheenu uu ku gaaray inuu halkaasi tago. inkastoo uu ogaa inuu wajahayo khataro badan Terror, Al-Shabaab, argagixiso Al-Shabaab, garoonka kuma habboonayn in diyaarad ku degto. for landing, xiriirka waddanka wuu ka go'naa dunida inteeda kale. country cut off. sababtu uu u go'aansaday inuu halkaasi aado waxay ahayd in uu tusiyo dunida inteeda kale in bani aadamnimada aysan dhiman. That inkastoo dadku dhinteen haddana bani aadamnimada waa inaysan dhiman. but humanity shouldn't be dead. To draw attention to si loo soo jiito bulshada caalamka waa inaan wax u qabannaa dadka dhibaataysan. tani laga maarmaan ayay ahayd, ma ahayn wax Turkigu uu doortay. while the contract that they promise and the contract signed by others heshiisyada ay inta kale ballan qaadeen ama saxiixeen ma hirgelin. waxay ballan qaadeen gargaar, taageero, si fiican ayay u hadlayaan, balse natiijo ka soo baxday ma jirto. very nicely, but there is no outcome. bal iminkan aynu eegno wararka ciyaaraha ugu waaweyn. xagga kubadda cagta tababaraha Arsenal Arsene Wenger ayaa sheegay inay kooxdiisu tahay inay Sunderland ka badiyaan caawa si ay ugu biiraan kooxaha tartanka horyaalka Yurub ee xil ciyaareedka soo socda. Arsenal ayaa geli kara kaalmaha ay ku jiraan Liverpool iyo Manchester City oo ah afarta ugu sarreeya horyaalka Ingiriiska, laakiin waa inay marka hore labada ciyaarood ee u hadhay ku guuleystaan. dhanka kalena tababaraha Manchester City Pep Guardiola ayaa sheegay in mar hore shaqada laga eri lahaaba haddii uu tababaro u ahaan lahaa koox weyn sida Barcelona iyo Bayern Munchen. haddii uu xilli ciyaareedka ku dhamaysan waayo isagoon koobna qaadin, Man City ayaa caawa martigelinaysa West Bromwich. haddii ay labada ciyaarood ee ugu dambeeya guuleystaan ayay u gudbayaan tartanka horyaalada Yurub ee soo socda. kabtanka kooxda Chelsea John Terry ayaa sheegay in ciyaaraha uu ka fadhiisan doono sanadkani kadib markii uu kooxda horyaalka qaatay ku hogaamiyey guushii xalay ee 4-3 kaga badiyeen kooxda Watford. waxaana lagu ciyaaray garoonka Stamford Bridge. ciyaartooygan 36 jirka ah
ayaa Chelsea xagaagan ka tegaya waxa uu dhaliyay goolkii ugu horeeyay iyagoo ku jira damaashaadka koobka horyaalka ee ay qaadeen. Chelsea ayaa Sunderland la ciyaari doona ciyaartooda ugu dambaysa ee xilli ciyaareedkani. Muusiga iyo suugaantu waxay meel weyn kaga jiraan nolosha Soomaalida. Xiisaha muusiga Soomaalida waxa isna dhadhan kale u yeela marka ay hablo qalabka muusiga tumaan, walow ay ku yar yihiin hablaha fanaaniinta ah ee muusiga tuma. Waxaa ka mid ah Khadiija Foodey Nuur oo haatan ku nool magaalada Nairobi ee dalka Kenya oo ay horaantii sagaashameeyadii qaxoontinimo u timid. Waxaa halkaasi ku waraystay oo kulan kula yeelatay Suhayba Maxamed Badqas. fanka waxaa igu dhaliyay ardayad markaan aan iskuulka dhiganayay ayaa waxaa dhacday in iskuulaadka heesa laga qaado. heesaha iskuulaadka laga qaado marka wax badan ay macallimiinta dhigi jireen waa cod fiican tahay. ayaa waxaa dhacday markii la keenay heesaha hirgalay, barnaamijkii heesaha hirgalay aan ka qayb galay. marka kabanka ayaa tuntaa ma inta aadan ku soo biirin fanka ayaad bilowday mise fanka markaad ku soo biirtay ayaad baratay sida loo tumo? kabanka markaan fanka ku soo biiraan bartay. Soomaalida badanaa ma jecla in gabdhaha fanka ay ku biiraan, bal waxaad iiga warantaa caqabadaha aad la kulantay. waxaa ka mid ah caqabadaha aan kala kulmay waalidkay iima ogoleen fanka, weliba khaasatan aabbahay. iskuulkii wixii oo dhan markaan iska dhaaf qasabay ku noqotay aabba marka inaan fankii galo, laakiin ma ogoleen aabbahay fanka. bal waxaad ii sheegtaa heestii kuugu horeysay marka aad ku soo biiraysay fanka ee aad qaaday? markii aan fanka bilaabay heestii aan qaaday waxa waaye haba baran lahayda. haddii aad noogu luuqeyn karto wax yar. maama Khadiija, bal waxaad ii sheegtaa fanka berisamaadkii sida uu ahaa iyo haatan sida uu yahay waxa dhahay? annaga codka imtixaanan ku soo galnay, maahina intaan organ iska ag tagnay hees iitun ma jirto. qof walba waa la soo tijaabiyey fanaaniintii hore codkooda inay heesi karaan in kale kulli waa la soo tijaabiyey. qof aan la tijaabin fan ma noqon. marka haatan xaalka sida uu hadda ma jirto wax la kontroolayo iyo wax maxay ahaatay. anaga heesaha hirgalaan aniga xataa anaa ka mid ah, xasan aadanaa ka mid ah. fanaaniinta badi waxay ku soo galeen heesaha hirgale. maxaad qabataa maama Khadiija haatan? aniga hadda waxba ma qabto, waa fankaygaas marmar adiga barnaamij aan iska dhigdhiga waa jirtaa, laakiin inta badan fanka sidii aan ku ahayn markii hore kuma nihin hadda. maama Khadiija, bal waxaad inoogu gabagabaysaa heesta hadda aad sheegaysa aad isla qaadeen Cabdiga? damankan jacayl mayaale waa un laysku dagaahe, maanaad saasii darsayso diiceeyo waa ku leehe, maanaad saasii darsayso. ugu dambayntiina hogaamiyaasha caalamka qaarkood siyaasadda oo qura un ma yaqaanaan. waxaa soo baxay fiidiyo uu ka muuqdo madaxweyne Vladimir Putin oo tumaya piyaano laxano hore oo waqtigii Soofiyeedka la garaaci jiray. waxaanu piyaamada tumayay intuu sugayay kulan uu la yeelanay madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping. waxa uu ka cawday meesha ay taalay piyaanada meesha taalay oo yidhi ma fiicna oo saani looma tumi karayo. wararkan iyo kuwii ugu dambeeyeyba waxaad kala socon kartaa oo aad ka helaysaan bogga bbcsomali.com. muuqaalada iyo sawirro kale oo kala duwan oo ku saabsan wararkaygana waxaad kala socon kartaa BBC Somali Facebook. ha hilmaamin waxaad sidoo kale nagala soo xidhiidhin kartaa annaga iyo asxaabtaba Twitterka @BBC Somali. barnaamijkaygii caawa intaas ayaannu ku soo gabagabeynaynaa. waa ku mahadsan tihiin daawashadiinna. intaaynu mar kale kulmayno waxaan idin leeyahay nabadgelyo.